آدي أياد أمها سنتها يا الله أنحرسه إنا لله وإنا إليه راجعون. محمود عبد الله عيسى سنجب وحاو كم فنانين تقوم قاعدين ذلك الصومالي مركز إيغو إن كنت كتبت بجدي إلى المجدي مركز محمود عبد الله سنجب waxa uu ka mid ahaa dadkii markii ugu horeysay ku soo galay fanka dhinaca ciyaaraha ay tahay iyo dhaqanka runtiina waxa weeyaan meelo kala duwan ayuu ka soo shaqeeyay xilal kala duwan ayuu soo qabtay haddii aan tusaalooyin u soo qaado ruwaayooyinkii ugu magac dheeraa ee kutubay sameeyadii uu dhigay waxa ka mid ah ruwaayadii la oran jiray qabrigii shacaysa sayid ciga maxamed iyo salaadirbi ayaa afar iyo qalanjo ka ahaa ruwaayadii ku xigtay waxaa la oran jiray ciid baa laqay shacaysa marka ruwaayadaasna zaynab iyo ninka la yidhaahdo salaadirbi ayaa iyaguna ka ahaa afar iyo qalanjo ruwaayadii saddexaad ee ku xigtay waxaa la oran jiray ciid baa laqay shacaysa marka xayeysiinta idaariyada barigaasi waxa qaban jiray allah u wada naxariistay cabdalla nuuruddin axmed iyo axmed xasan cunku ruwaayadihiisu waxay ahaayeen ruwaayada aad iyo aad loo jeclaystay sanadkii 1987 sanku waxa uu dhigay ruwaayad la oran jiray xuriyo min guurshadaadkeeda ruwaayadaas oo dowladii madaxweyne maxamed siyaad bare ay u arkeen ruwaayad antiya ayaa markaasi la xaniray amaba la joojiyey sanku ruwaayadii kale ee sideetamayadii uu dhigay ugu caansanaa waxa ahayd ruwaayadii la magac baxday waa maadeys adduunyadu dadkuna way masalayaan oo daara axmed asrishi ka ahayd akoorana uu ka ahaa maxamed axmed dabarlow runtii maxamed cabdilaahi singub waxa uu soo noqday maareeyaha wakaalada mursida iyo madadaalada national theatreka ee magaalada hargeysa intii u dhexaysay sanadkii 1973 ilaa iyo 90 oo dagaalada sokeeye ay dhacaan marka maxamed cabdilaahi singub waxa uu ahaa banaan weyn oo caana oo markii hore ciyaaraha daayiraha ku soo galay Somali Folklore Dance markii dambana noqday nin mu'allifa oo caan ka noqday meelo kala duwan oo dalka ka mid ah xasan baydhabo marka adigu xilligaasi isla soo shaqeyseen xilliga ahayd anigu intii markaan dugsiga sare soo dhamaystay sanadkii 1979 dabayaaqadeeda ayaa waxaan imid radio muqdisho dabeetana markiiba waxaa laga soo bedelay inaan xiriiriye ka noqdo ruwaayadaha fanaaniinta qaranka ay dhigayaan ee waaberi oo dabcan waxa igu horeysay ruwaayad la oran jiray dirkan maaha jacay oo uu lahaa maxamed aadan tacaal markaa 1970 ayaan si rasmi ah isu baranay allah u naxariistay maxamuud cabdilaahi sangub runtiina waxa uu igu dhiirigelinayay xilligaasi anigoo aad u dayar sida barnaamijyada siyaasadka aan u xiriirin lahaa oo riboorka aan uga gudbin lahaa حتى waxa uu igala talin jiray dharka aan qaadanayo iyo sida markaasi aan isku qurxinayo iyo sida timaha aan u nidaaminayo iyo habka masraxiyada iyo waxyaabaha ay ugu duubaan jiray oo runtii isaga iyo qadiisha Cabdilaahi Salaas oo wax u naxariistay ayaa waxaan ku xasuustaa in kan yar miyaa la keenay siyaasadka markaas ay yeedhana waxay yiraahdeen masrax marka saarantay waxa loo baahan yahay in aadan check microphone ama absi microphone aan ku gelin oo si geesinimada aad u hadasho marka waxyaabaha ugu weyn aan ku xasuusan karo iskuba arimahaasi ayaa kamid ah dabcan sanadkii 1997 ayaa ahayd markii si rasmi ah aan isu baranay maalmihii dambana intii dambe waxa uu ku xanuunsanayay magaalada muqdisho intii muqdisho uu yimid burburka uu dhacayna oo bashar ayaan la kulmay mar waxa ay mar dawladii madaxweyne cabdiqaasim oo madaxda ka ah oo jamhuuriyadda Jabuuti ka yimid muqdisho ku arkay hotelka waydaada saxaafi iyo markan dambe oo 2014 mar aan garow ka yimid oo muqdisho soo gaaray oo aan ku arkay hotel la yiraahdo Malayka ay wada deganeen isaga iyo xaaskiisa iyo Maxamed Axmed oo markaas Ingiriiska ka yimid markaas uu waxa waa Allah u naxariistay nin aad u dabeecad wanaagsan oo furfuran oo bulshada dadka maanta ayayna ahayd soo dhamaaday xagga aqoonta sharafka iyo karaamada diinta islaamka wax waa nin aan salaad ku jaray waa maasantahay waxaad sheegtay inaad aqoon dheeraad isu lahaydeen marxuumka bal bulshada maxaad ugu sifayn kartaa nin noocay ayuu ahaa محمود عبد الله سنجب runtii حتى ما aha muqdisho oo kaliya sideetan iyo saddex mar aan wad bila socday aan ka nimid jamhuuriyadda Jabuuti waxaan ku soo maray tiyaatarka Hargeysa oo maareeyaha ka ah
si wanaagsan ayuu dadka loo dhaqmi jiray si wanaagsan buu iisoo dhaweeyey anagu aad u dhalin yara runtii hotel oriental la yidhaahdo oo laba dabaqa oo markaa hargeysa hotelada ugu waaweyn xilligaasi ahaa ayaa uu seexiyey runtiina maxamuud cabdilaahi dhinaca kale riwaayadaha waxbuu ka jiri jiray oo meelo badan baa isaga laftiisa jimiinka uu kaga qaybgeli jiray runtiina wuxuu ahaa nin isku kalsoon oo dabcan waxyaabaha kaleeto oo aan aad u xusuusto oo la yaabka igu leh marka si gub laga hadlayo waxaa kamid ah dabcan sideetanayadii horaanteeda oo kale madaxweyne maxamed siyaad bare ayaa waxa uu yimid golaha murtida iyo madaalada isagoo kormeera markaasuu si kaftana waxa uu yidhi madaxweyne been baad ii sheegtay markaasuu madaxweynihii ku yidhi maxaan been kuugu sheegay markaasuu yidhi riwaayadda xoriya ayaad iga joojisay markaan madaxtooyada kuugu dhigreer waa adiga iga ogolaaday kadibna madaxdii warfaafinta xukumaysana waa ka diidisay marka waa waxaad isu ogeydeen baan u malaynayaa buu ku yidhi markaas ayuu waayahay canaan baan kaaga qaadanaya ama dhaliil buu yidhi madaxweynehi allah u naxariistiya maxamed siyaad markaasuu markuu dhaqaaqay wuxuu yidhi singub waa ninka cidooda kaftami kara markaa sidaa looma eegi karo markaas isagoo ujeeda in sangub maadaama madaxweynaha uu ku yimi been baad ii sheegtay inaan la xidhin ama aan wax la yeelin marka sangub weligiina lama xidhin wuxuu ahaa nin wadaniya oo shaqaynaya riwaayihiisna inta badan isagu waxa uu sheegaa inaanay anti ahayn inkastoo dowladii kacaanka riwaayaha oo keeno in badan ay oran jirtay anti ayay ahaayeen ama kacaandiid laakiin isagu waa uu diiri jiro wuxuu oran jiray riwaayadani waa wadani marka singub nin furfuran oo dabeecad wanaagsan ah ayuu ahaa oo dadka soomaaliyeed u dhexeeya xaqiiqdii iyadoo burbur uu jirana iminka waa tan uu ku xanuunsaday uu ka weyahay magaalada muqdisho taas ayaad ku garanaysaa nin